xaflad siyaar sare loo soo agaasimay isla markaana ku qalin jibinaya arday gaaraysa 15 kana qalin jibinaya Qur'aanka Kariimka ee madrasada Abu Ayyub Al-Ansari ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid ee xaafadda Jungale. Waxaa ka soo qayb galay culimada waalidiin iyo sidoo kale ardayda qalin jibinayso kuwaas oo maanta ku guddoomay abaalmarino iyo sidoo kale ijaazooyin kala duwan. الله تعالى أنزله ورسوله ugu horeyn waxaa lagu daahfuray ayadaha Qur'aanka Kariimka ee qowlkii beetaas uu aqriyay ardayga lagu magacaabo Cabdirasaaq وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ardayda ayaa sidoo kale waxa ay madrasada Abu Ayyub Al-Ansari ka bartaan ducooyinka iyo sidoo kale kitaabada yararka iyo sidoo kale tajwiidka Qur'aanka Kariimka. waana kuwana qaar ka mid ah ardayda oo akhrinaya ahkaamta tajwiidka Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale ducooyinka. marka la kalaamo waxaa la akhriyaa Allahumma inni a'uudhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith marka la isku baxayna waxaa la intaasi kadib waxaa xafladda soo gabagabeeyay maamulaha guud ee madrasada Abu Ayyub Al-Ansari Macallin Mustafa Ali Kuure isagoo ka hadlay aadaafta guud ee madrasada. intaas kadib waxaan mahadcelinaynaa waalidiinta waqtigooda soo horay maaragtay halkan ku soo xuduuray juhdiga badan ku bixiyaan inay maaragtay quraanka dhamaystaan aad ayaan mahadcelinayaa. intaas kadib ardada quraanka dhamaysatay ayaan mahadcelinayaa. intaas kadib insha Allah waxaan rabaa waxyar inaan soo koobo ahdaaf almadrasa. madrasada waxaa jira ahdaaf ay leedahay. ahdaaftaas haddaan waxyar ka soo qaato waqtiga aad loo horeeyay darteed hadafka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa تحفيظ القرآن الكريم إن أي معرفة حل إسكسار تكون يلا بأنهين إن القرآن كلا بيوم هذا الكلمات وهو نقضنا التربية والأخلاق إن معرفة أردنا التربية يسوق ودراش أخلاق دولا هذا الكلام وهو نقضنا معرفة النظافة معرفة مكانك dadka guud ahaan ardayga nadaafadiisa inay ilaaliso iyo maaragtay ahdaaf aan soo koobi karin maaragtay intaas ayaan rabaa inaan wax ka soo koobo intaas